Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada YouTube channel-ka Xamsuuni Hena. Please haddaad ku cusub tahay subscribe saar, like garee, share garee. Asxaabta maanta waxaan la wadaagi rabaa faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee naasnuujintu leedahay hooyada iyo ilmaheeda. Faa'iidooyinka ilmaha ay helayaan waxaa ka mid ah caanaha hooyada. Ilmaha waxay ka helayaan wax walba oo cunto u ah ee u baahan yihiin. Cunuga wuxuu u korayaa jir ahaan iyo aqli ahaanba. Waxay kor u qaadaysaa difaaca jirka. Naasnuujintu waxay hoos u dhigaysaa halista cudurrada inta badan ku dhaca ilmaha yaryar. Naasnuujintu waxay kor u qaadaysaa miisaanka cunuga waxayna ilaalisaa canuga cayilka saa'idka ah. Naasnuujintu waxay kor u qaadaysaa korinshaha maskaxda. Ilmaha naasnuujinta fiican hela waxay aad u fiican yihiin waxbarashada. Naasnuujintu waxaa ka abuurma jacayl dhex mara hooyada iyo cunugeeda. Haddana waxaan rabaa inaan ka hadlo qaybta faa'iidooyinka hooyada ay helayso. Hooyada ilmaha nuujisa waxaa aad u yar in ay ku dhacaan kansarka naasaha. Naasnuujintu waxay hooyada ka yareynaysaa miisaanka badan. Sidoo kale, naasnuujintu waxay aad u yareynaysaa in hooyada uu ku dhaco nooca 2 ee macaanka iyo cudurrada wadnaha. Naasnuujintu hooyada waxay ka helaysaa family planning. Inta cunugeeda ay si joogto ah u nuujinayso, uur ma qaadayso, cunugeeda wuxuu u koraa ayana nasiino ayay helaysaa. Sii share garee, like saar insha Allah.